kadib asan meesha ku dagaalamay meesha sidii oo dhintay ninka dhintay hebel la dhahaayay hubkaanu ku hubaysan in meeshaas laga arkay Ismaaciil Aadan Cismaan oo afgarasho looga dhagaysanay iyo dhagar qaba kale oo geeriyooday ayaa diyaar u ahaa inay nafta dhaafiyaan sargaal ka tirsanaa ciidamada oo ay ku sugayeen afaafka hore masaajid uu ku oogayay waajibaadka alle waxaase qadarta ka sukow dhagartaasi fashiliyay ciidanka aan muuqan ee ilaalada shacabka 8 bishanaad ee sanadkan askarta waajibaadka qaranka ka lahaa isgoyska Macalin Nuur ee degmada Dharkiinley ayaa shaki weyn ka qaaday eedeysanaha iyo dhagar qabaha dhintay waxaana la siiyay amar ahaa inay iscadeeyaan nasiib darase xabad uu bilaabay dhagar qabaha dhintay ayaa keentay in halkaas lagu toogto iyadoona goobtu isaga baxsaday eedeysana Ismaaciil oo ay ciidamada markii dambe isagoo dagaalamaya dhaawacahana ay soo qabteen garsoorano ogol horta shabaab waa ka tirsanaa runway ano inta keeraa nin nabadoon ay geey macada liigay waxbarasho kadib markii liigay bulfulay kadib bu'aala liigay qorfufruuy waxaan la bari kadib waxaan argay goolka bakool waa ka soo tagay waxbarasho markii nala geeyay fulay kadib bu'aala nala geey qorfufruuy waxaan la bari kadib waxaa liigay goolka bakool markii liigay bakoolaan ka soo dhuuntay 20 jiro lagu xiray shabaabka ay xiray kadib Sacuudi aan u baxay Sacuudi markii aan u baxay Sacuudi aan ka imaaday 2023 dhaxdeeda aan ka imaaday shabaabkan waxay u dambeysay 2019 Sacuudi Sabiyan ka shaqeynay Sabiyan markii ka shaqeynay Jeysana lagu soo taray xabsiga Jeysan Nairobi diyaaran u dejisay Nairobi kadib Muqdisho aan la keenay Muqdisho markii nala keenay maamada soo salaan gashi Shabeellaha Hoose aadi Shabeellaha Hoose markii aadi laba tooka ay xireen nala shaqeey waa iskaga soo tagay shaqada waadiid waa iskaga soo tagay Xamar dugsi aan iska dhigay anoo dugsi aan dhigay bil soo dhaxday soo waceen nin adaan ku baahanayna nala shaqeysid anoo asar aan tugtay dugsi aan ka imaaday macallin dugsi dareedisan macallin dugsi aan ku ahay dugsigan ka imaaday dugsi anoo ka masjid agtiisa mooto bajaaj hal naag laba wiil fuush ameesh u soo qaaday tabakaymidoo waa liigay tabakaymidooda u soo cun markaan kuwa kale waa daateen waa degan ani askarigan shabaabka isku soo helay xabada markuu fur meesha ku dagaalay meesha ku geeriyooday asi tuuladii feeraha loo saaray yaa ku soo wacday nin shabaab ay soo wacay magaciis muxuu ahaa mustaqanan ninka nin shabaab ama ka saayna nin koonk laba ay soo wacay mid waa ka saay midna ma ka saay koonk ka saay aljiis Allah aljiis ninka isoo xiray waa laba toog i xiray guriga anoo joogo Maxamed Salaan oo u imaaday i xiray waa muxuu qabtaa aljiis waxa iska mid yahay raggan oo amar diidka ninka amrka shabaab ka goosto kale ninka qabto waa aljiis Allah markii ugu dambeysay waxa uu soo xiray ugunji degmada ugunjaan ka soo aray Muqdisho soo galay dugsiga furnay anoo dugsiga aan dhig dugsiga macalinka dugsi kabiir waa dugsiga aan joog 10 bilood kadib shaqadan saan u amran shabaabna shaqo ku milin qofka kale oo soo wax marka muxuu ku leeyahay mootada sidii kugu timid qaabka nafaasiga mootada waxay ugu timid 3 bari ka bacd intii mootada iimaanay aan $60 li soo diri $60 markii li soo diri nala shaqeey waa ka bacd mid kale ay soo wacay no bari aan ku baahanahay meel inta inaan raacdeen rabnaa waa anoo cabsanayo oo dugsiga masaajidka aan ka imaaday oo dugsiga aan ka imaaday aan mootadii aan soo raacay mootadii markii aan soo raacay askariina oo soo wada markaan noo jirayna dhidhiga baa arkay maxaa ku daarasay meesha xabad waa u furay asag meesha ku dagaal anana guriga aan ku dhacay guriga markii aan ku dhacay liif iyo waxaas madaxa 7 liif ay u dhacday liif iyo waxaas lagu qabsaday kadib jilco liikeen mootada yaa ku soo xiray intee ka soo raacday intee ku imaatay mootada tireed dugsi ay u imaatay intii uu soo hartay ma jir guriga dugsiga ku timid dugsiga ay intii mootada iimaanay waxay dhigi jireen inta joogta maqaayada aan jooga dugsigaada inta way marka mootada intee u socotaa marka ku soo qaaday intee u wadaan mootada markii tireedis uu soo qaaday tabakaybidoo ay geysay tireedis ma aad meesha dugsiga ku yeesay dugsiga halkee ku haysaa tireedis waa ku soo qaaday intee geysay tabakaymidoo kadib mootadii laba wiil anaa 3 uga hay laba wiil iyo 3 gabar ay fuuleen kana ay soo raacay markaan meel lagu baahan yahay soo sidaan si wixii qorshe ay wateen moogi maxuu ku sheegay adiga qof la soo socota ma taa maxuu ku sheegay kan waxa sidhay waa lagu baahan yahay dad ku baan soo sidhay anan amarkiisa ma diiday nin hubaysna
amarkiis waa qaatay kadib markiis aan socdo kadib asan meesha ku dagaalamay meesha sidii oo dhintay ada guriga ku ordo ma jir marka aniga guri iridiisa iskaga dhacay guri aan dhax galay ma jirto ay ha ma taqaan say alle waa ka Allah walaalkay muslim waay ma masbiday ilaahay ilaa ma waxaas dhan laga marraba ma taqaan qofkaan ma kasa ilaahay go in badana sawirkiisii ma kasa sayid axmed cabdi aadan oo magaciisa afgarashadu yahay carab kana ganacsada iibka doorada ayaa isna loo haystaa inuu gabaad siiyo dhagarqabayaasha dilalka gaadmada ah ka fuliyay caasimadii nawaaxigeeda waxaana lagu soo qabtay xog uu bixiyey eedeysana Ismaaciil taasi oo cadeynaysa xiriirka ka dhaxeeyay xafiiska xeeraalinta ayaa soo bandhigay eedaha ay u hayaan labada eedeysane xiriirka ka dhaxeeya cadeymo iyo sidoo kale howlihii ay u qabteen qawaarista waqtiga la qabto waa kana sida u yaalo waxa ka dareemaysaa mudane gudoomiye halkaas waxa ka dareemaysaa isagoo dhaawac in la qabto oo faragalansa ah halkaas waa kana sawirka koowaad laga qaaday saan u yaalay dhaawacu ahay waa markii la qabto waa nolosha lagu qabtay kii kale horjoogiisana waa kana oo asaga ninka maadaama uusan aqoon baladka ninkan ayaa horjoogu ah ninkan marka inta dagaalamay oo ninkan wuxuu ku dhahay ciidanka ka dhaga adeeg dagaalkii ayuu ku dhintay oo ciidankii asiga dhaxmaray kadib mudane gudoomiye maxaa dhacay waa kana asoo gargaar loo fidiyey marka hore soo u yeel fiiri mudane gudoomiye marka hore soo u yeel fiiri waa dhamaadka uu ka soo qaaday Ethiopia waa goomankiisa u yaalan fiiri mudane gudoomiye marka kadib wuxuu u gacan galay dawladdii Soomaaliyeed waa la daaweeyay waxa laga dhigay waa kaas ninkan aadan aqoonsanin ninkii hore ninkan isbalaha macnaha waa ninka maxkamadda hor fadhiyo saa uma aali hadda daa fiirsa xataa isbalaha marka gargaarka loo fidiyo waa gacantiisa waa la kabay qarashan ku bax marka eedeysanahan iyo eedeysanaha kale relatedka ka dhaxeeya maxaa waay eedeysanahan mudane gudoomiye relatedka eedeysanaha asiga ka dhaxeeya waxaa waay xoog ayuu baxshay eedeysanaha marka la qabtay wuxuu sheegay yaa ka taqaanaa dabakaayimadow waxaan ka aqaanaa hebel oo carab ah eedeysana carab marka waa lagu howlgalay waa la soo qabtay waxaa la sameeyey baaris moobeeladiisa ah maxaa soo baxay mudane gudoomiye waxaa soo baxday baarista moobeeladiisa ah inuu eedeysanayaal keed wadaag leeyahay nimankan hadda aan tigta saarnay ayuu keed wadaag leeyahay oo ay ka mid yihiin ninkaas Sayid Cali la yiraahdo nin ka tirsan kooxda qawaarigta al-shabaab waayo oo la yaqaano marka ninkaas uu leeyahay taas ayaa keenaysa marka iyo nambaradan kale oo maxkamadda si gooni hadda inay arkiina umaleeya si gooni ah loo wadaagi doono oo aan hayno keed wadaagga ay yihiin mudane gudoomiye waxa la yiraahdaa Sayid Cali Axmed Cali eedeysan la yiraahdo Saciid Muuse Tifo Raagi aan cabi oo hore loo soo xiray oo hadda xabsiga dhex jiro ayay keed wadaag yihiin marka warqadaana cadeynayso waa moobilkiisa marka la baaray waxyaabihii soo baxay ayay ka mid tahay taas marka maxay keenaysaa eedeysane carab iyo eedeysane sanay relatedka ka dhaxeeya iyo connectionka ka dhaxeeya maxaa waay waxaa ka dhaxeeyo mudane gudoomiye laba arin ninka numberka mobilkiisa waxaa laga helay xiriir shabaabaa laga helay oo shabaab hore oo la soo xiray oo la xukumay oo lagu helay faldambiyeedkii oo xabsiga dhex jiro ayaa laga helay mobilkiisa warqadda ku cad intaasi kadib maxkamadda ayaa guda gashay dhageysiga maragyada ay soo gudbisay xeeraalinta kuwaasi oo fuliyey howlgalka lagu dilay dhagarqabaha laguna soo qabtay eedeysanaha koowaad baare ka tirsan sirdoonka qaranka ayaa garsoorka la wadaagay natiijada baaristiisa ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdicasiis Cismaan Cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha lagu qaado qodobadii sharciga ay ku soo eedeeyeen eedeysan Ismaaciil wuxuu u gafay aayadda 33 ee suuratul Maa'ida fasaad dhulkan ku ahay xaarib oo ahay ummadda gidgal ku ah ee raba qof masaajid ku jiro masaakiin ah inuu masaajid dhexdiis ku dilo waxyaabaha waxaa waaye cajiibka ah oo naxariis darrada ee ka mid tahay qof ilaahay inuu soo baxay la cibaadeysto ilaahay hortaagan inaad adiga inta soo baxdo bastoolad soo qaadato inaad masaajidka dhexdiis ay ku dhex disho aad rabto waxyaabaha oo waxay ka mid tahay oo qawaarigta lagu yaqaanay ka mid tahay mudane gudoomiye marka wuxuu kaloo u gafay qodobka lixaad faqradiisa labaad shabaab inuu yahay asaa kiraala qodobka lixaad faqradiisa labaad caadi ayuu u galay saddexaad uu galay tababar u qaad qodobka faqradda saddexaad waxay leedahay qofkii shabaab ka mid noqda ee tababarta
qofka markuu ka mid noqdo iyo markuu tababarto way kala dambi badan markuu ka mid noqdo oo caadi uga mid noqdo oo wali tababar qaadan markuu tababarto ku sii daray qodobkaas marka saas tababarkii loo eego 15 sano u dhigaa toddobaada dhacday inuu gudoomiye waxa dhacday heesasa hub sharci darro ah oo cidna ku ogeyn oo qawaarijta in lagu dagaalamay ahayd oo dawladda bis loo ogol yahay iyo dadka ay u sharciyeyso ayuu watay qodobka 8aad isticmaala ka dhacay uu dagaalamay sida la sheegay oo sheegeen marqaatiyaasha ah meeshan keen 15aad waa shirqool iyo abaabul dambi waxa jira dambi ka weyn in qof muwaadin ah masaajid ku jiro ina abaabul dambi ah soo sameeyaan bajaaj soo raacdaan ceelasha ka soo baxdaan laba bas kala soo qaadataan meeshii imaadaan masaajidka aha meeshii masaajidka aniga u fadhiisataan adinku u fadhiisayna ciidankeedu ku imaa iscadeyn loo markaadna abas kala la baxdaan ciidanka ala dagaashaan midna la dilo midna la dhaawac waa abaabul dambi waay abaabul dambi to ka bilawda wuxuu ka bilawdaa inay jirto niyo ah in qof la soo dilo ama qof la qarxiyo ama qof la baabaasho ama guri la galo ama ummad dhan la halaago marka ma dhacday abaabul dambi waa dhacday ceelasha ilaa dabakaymadu intuu dhaxayso abaabul ka socday bastoolada la soo qaataana ku cadeeyay taas 18aad dhacday wuxuu ka qayb qaadanaya ninkan eedaysanaha koowaad ah in uu nin muwaadin oo masaajid ku jiro in uu dilkiisa qayb ka ahaado ama dhameystiraan noqdo ama kii koowaad oo gacanta koowaad lahaa ha noqdo sida qawaarijta aan ku baranay oo ay sameeyaan labaatii koowaadna waa dhacday gacan siin ayuu ahaa oo ninkii uu la socday wuuna gacan siiyahay kan kalena waa gacan siiyahay labadu waa gacan siiyahay si oo ninkaas masaajidka ku jiro muwaadinka ah loo dhaafin marka intaas mid gudoomiye waxay dhigayaan mid walba wuxuu dhigayaa waa ku culus yahay mid walba marka dhammaantood dhigan waa galay isku dil oo qodobka ugu weyn ahayna waa galay oo ninkii uu dil rabay oo muwaadinka ah masaajidka ku jiray ciidankii ka badbaashaa keenay meeshan marka waxaan codsanaynaa maxkamadda qodobadaas aan ku soo eedeynay iyo aayadaas quraanka ah oo fasaadka dhulka ku haya ah inay maxkamadda qodobadaas ay ku xukunto waliba xabsiga ugu adag ee qodobadaas dhigayaan inay maxkamadda ku xukunto eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad sayid axmed cabdi aadan sayid axmed waxaa lagu soo qabtay xog uu baxshay eedaysanaha koowaad sidoo kale gabaasiye inuu yahay ayaan dareemaynaa maxaa yeelay waxaa kuwa caddeynaya laba arin wuxuu xiriir la leeyahay eedaysanayaal kale oo shabaab ah oo la xukumay oo dambigii lagu helay sidoo kale waxaa sheegay xogta uu ku baxshay eedaysanahan oo la qabtay isagoo faragalansa isagoo caadi oo la tilmaamo mid gudoomiye waxaa la qabtay isagoo faragalansa oo dambigii faraha kula jiro eedaysanaha koowaad kaas ayaa sheegay marka waxay ka dambi culus tahay qof caadi loo qabtay iyo qof dambigu faraha kula jiro way kala dambi culus tahay qofkaas marka saas u sheegay waxaan ku soo eedeynaa marka qodobka 6aad faqridiisa labaad iyo qodobka 14aad qodobka 6aad faqridiisa labaad meesha waxaan ka dareemaysaa ma hayno meelo tababar ku qaatay eedaysanaha labaad laakiin waxaan haynaa inuu shabaab ku biiray maxaa cadeeyayo connection xiriirka ay leeyihiin maxaa kaloo cadeynayo xogta uu baxshay eedaysanaha koowaad ee ah shabaab ayaga is yaqaan macnaha shabaab kala yaqaan qof kale ma yaqaan asagaas marka sheegay qodobka 14aad marka wuxuu sheegaa qodobka 14aad wuxuu sheegayaa in case ninkan hadduu ku marsiyoodo waxaan leeyahay waxaan ka ganacsadaa doorada iyo bagaashka hadduu ku marsiyoodo shabaabka soo wacay muxuu sheegi waayay oo xiriirka uu leeyahay oo daqiiqadaha badan uu la hadlayo muxuu sheegi waayay qodobka 14aad wuxuu sheegaa marka waajibnimada falal argagixiso amna xubnaha argagixisada in la sheego waajib waa uu leeyahay qodobkaas markaasna ciqaab uu dhigaya lixaad faqridiisa labaad uu ku dhacay kanna uu ku dhacay ma hayno meel hub ku qaatay qodobka toddobaad ku eedeyn waxaan ku eedeynay haddii ganacsado isku sheegay ganacsadaha isku sheegay haddii ay soo waceen shabaabka waa la hadli karaa waa soo wici karaan ayagoo baad ka rabo waxaa la rabaa markaas inuu laama amniga la wadaago ma sameyn qodobka 14aad marka wuxuu leeyahay waajib waa uu leeyahay waliba wuxuu dhigayaa waajibnimada nimanka shabaabka waxay ka qaadanayaan inaad sheegto iyo nambarada aad la wadaagtay qodobkaas marka wuxuu dhigayaa 5 sano dhigayaa qodobkaas bis marka la eego qodobka 6aad faqridiisa labaad wuxuu dhigayaa 15 sano dhigayaa marka maxkamadda inay intaas u fiiriso oo qodobada aan ku soo eedeynay iyo sanadada ay dhigayaan oo meesha ku xusan in asna ku xukunto maxkamadda maasinta qareennada u doodayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in xorriyaddooda la siiyo muwakkiliintooda ismaaciil wuxuu ahaayaa la yiri killer qof wax dilaayo ahaayaa allah qofka wax dilaayo mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta ciidana ciirsanayo xabad ku ridaa allah ciidankii inta marqaatiga waxay dhaheen xabadoo nagu soo ridaay annagana xabada ku ridna aaway xabad intee taala xabadaas ma jirto waay
hadday jirto waa la keeni lahaa maxkamadda wax loo keenay ma jirto xabadda la keenay ninka dhintay lahay oo weliba magaciisii la aqoonin inay helaanay ahayd laamaha baarista ninka dhintay hebelaa la dhahayay hubkaanuu ku hubaysanay in meeshaas laga arkay ahayd ma la keenay mudane guddoomiye wax la keena male waa soo koobayaa maxkamadda sharafta leh meeshaan waxaa ka dhacay maanta aan arkaynay oon marnaba la waafajinin qodobka 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed marnaba aan la waafajinin qodobka 163 isla xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane guddoomiye ugu horeyn Axmed meeshaan waxaa ka cad labadaas qodob inaysan dul saarneen qodobkan la soo qaatay ee lixaad hadda afkiisuba wuxuu ka dhahay khayr Allah siiyo xir ilaaliyaha markii hadda uu hadlaayay meeshaas ay ugu qoran tahay afkiisu wuxuu ka dhahay qodobkan lixaad saas uma cadeey karna laakiin qodobkan 14aad haddana wuxuu yiri labada qodob ba la ii dul saaro xilligu ku biiray meeshuu kaga biiray waqti cidii ogeed waxay abihii uu ka qabtay inuu ku sheegay ahayd qodobka lixaad sida uu sheegay lama haayo ma kori karo Axmed qodobka 14aadna wuxuu leeyahay mudane guddoomiye wuxuu leeyahay warbixin xogtaasoo ku salaysan fal argagixiso xog maanta la dhihi karo 14 Axmed fal argagixiso xogtiisa laga helay ma la keenay meeshaan ilaahay ku dhaariyay waa maya waxay keeneen bas nin xabsiga ku jiro oo xiran oo xukun ku dhacay oo la xiriiray goormay la xiriiray taariikhda la xiriiray maxaa way xiriirka ay sameeyeen maxay ku wada hadleen ma qorna intaba lama sheegin waa la xiriiray bas marka taas waxay dhigaysaa Axmed inuu meeshaas bari ka noqon doono hadduu alla idmo laakiin tan lagu sheegayo qof uu dili rabay Ismaaciil mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh mar haddaan bal soo cadeynin qofkii la dili lahaay oo la dhihi karin Sheekh Xuseen waay ama Sheekh Faarax waay maxkamadda inay dib u fiirsaa rabaa dhameystirka saaxiibkayaan siinaa qodobadeeda difaac intaasi ku eegin maxkamadda waa mahadsan tahay waxaa soo haray Sid Axmed waxaa laga soo qabtay Garasbaaley gurigiisii lama tegay maya asiga hub ma lagu soo qabtay waa maya waxaa la sheegay oo kale ah xiriir dhaxmaray telefoonkiisa iyo telefoonna kale nafteeda inay sax tahay maxaa cadeynay wax cadeehay ma jiro maxkamadda sharafta leh maanta oo aan maxkamadda hortaaganahay muwakkiliintayda wax qiraal ah oo shabaabnimo ah Ismaaciil markaa ka bilaabo asiga ayaa sheegay waa ka mid ahaa jiri wax ka soo inteeyay xafiiska xiraalada ma keenin asigana ma sheegan maxkamadda sharafta leh waxa ka cusraaya Ismaaciil inay u tixgeliso qodobka 4aad farqadiisa ga intii asiga as sheegtay maanta maxay la marqaatana ma la keenin xafiiskana ma cadeynan inta asiga as sheegto kaliya inay maxkamadda u tixgeliso waxa ii soo haray Sid Axmed maxkamadda sharafta leh waa nin odayaa degan caruur leh Garasbaaley ganacsato ah weligiisna aan shabaab noqon xiriir shabaabna si jiran xafiiska xeerlaalantana hadda maxkamadda horteeda waxa iska cadeeyay wax xiriir shabaab ah qodobka labada qodob isku qodobka 6aad iyo qodobka 14aad wax xiriir kama hayno yiri laakiin mobilkiisii wax laga helay mobil marka maxkamadda sharafta leh qofka bini'aadanka ah haddii ay jirto lacalaatee waa dhici kartaa laakiin Sid Axmed waxaas og yahay oo shabaab xaqiisa ma jirto maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa Sid Axmed 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya inay u qaadato xuriidiisna isla maanta dib ay u soo celiso maxkamadda sharafta leh way mahadsantahay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka Muqdisho